بسم الله الرحمن الرحيم waxaa hadda soo gabagaboway shirkii madasha wada tashiga qaranka oo ka socotay Afisiyoni Center taliska ciidanka cirka Afisiyoni oo ay isugu yimaadeen dhammaan madaxda qaranka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa shirka gudoominayay waxaa shirka joogay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxaa joogay madaxweynayaasha ka socda dowlad goboleedyada waxaa joogay gudoomiyaha gobolka Banaadir runtii shirku wuxuu u socday shirkii shalay soo bilaabmay si hufan oo qurux badan ayuu socday maantana waxa lagaga wada hadlay arrimo aad u muhiim ah oo danta dalka iyo danta ummadda waxa lagu sii ambaqaaday arrimihii doorashada arrinta ugu weyn ee maanta taalimiiska waxay ahayd waxa warbixin laga dhageystay oo madasha wada tashiga qaran laga dhageystay gudidii farsamada ee arrimaha doorashooyinka 15 ilaa 16 Febraayo ku kulmay magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed gudidu waxay soo bandhigeen qodobadii heshiiska waxaana sameeyeen hadal jeedin aad u fiican oo ay soo dhaweeyeen madaxda wada tashiga qaran runtii aad buu madaxweynuhu ugu mahad celiyay madaxda gudida farsamada iyo madaxweynayaasha kale iyo ra'iisul wasaaruhuba shirku ay ujeedadiisu ahayd dardargelinta arrimaha doorashooyinka iyo ayidida shirkii 16 Febraayo ee Baydhabo iyo hirgelinta shirkii 17 Sebtembar heshiiskii 17 Sebtembar 2020 si wacan buu galabta u soo gabagaboway oo aad u fiican jawi qurux badan uu sii soconaya waana la sii ambaqaadaya nasiib darro wali waxaan shirka ku soo biirin laba madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Deni iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxa aan u rajaynaynaa oo aan filaynaa in ay shirka ku soo biiri doonaan oo ay kala qayb gali doonaan doodaha socda berito shirku uu sii soconaya arrimo aad u waaweyn ayaana lagaga wada hadli doonaa ay kow ka tahay amniga doorashooyinka waana la sii ambaqaadaya shacabka Soomaaliyeedna waxaan jecelahay mar walba inaan la wadaagno halka uu shirku marayo iyo hawluhu halka ay socdaan madaxdu runtii waxay muujiyeen basayl badan iyo gudida farsamadana aad bay ugu mahad celiyeen iyo barnaamijka ay soo bandhigeen waad mahadsantihiin waa inoo berito saacadahan oo kale marka shirku soo gabagaboobo marka shirka qaybihiisan uu soconaya shirku sidan oo kale uu saacadahan soo gaaro aad iyo aad baan bahda saxaafadan u salaamaya waa mahadsantihiin